gudaha maxkamadda gobolka Togdheer waxaa si rasmi ah loogu horburburiyay khamri tiro badan oo ciidamada amniga ee gobolka Togdheer ay ka soo qabteen goob lagu aasay burburinta khamrigaasi waxa goob joog ahaa hay'adaha cadaaladda ee gobolka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer khamrigaasi tirada badan ee lagu horburburiyay ayaa waxa soo qabashadiisa ku guuleystay ciidanka saldhigga dhexe ee degmada Burco ugu horreynna mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Togdheer ayaa ku dhawaaqay qaraarka lagu burburinayo khamrigaasi maxkamadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda gobolka Togdheer jeedo qaraar burburin khamri dhan 746 litir maxkamadda gobolka Togdheer Burco markay aragtay warbixinta taliyaha qaybta booliis ee gobolka Togdheer ee la qoray 22/2021 ee ku saabsan khamriga ay soo qaateen saldhigyada Burco khamrigaas oo dhan 746 litir oo khamri ah maandooriyaha kaasoo uu ku dalbanayo in la burburiyo khamriga tiradiisu kor ku xusan tahay maadaama oo ay adeegsanayaashii sita ay ka carareen markay aragtay warbixinta xafiiska xeeraanta gobolka Togdheer ee iyadana la qoray 22/2021 taasoo iyadana maxkamadda kaga codsanaysa in la burburiyo khamriga tirsigiisu dhan yahay 746 litir yaalla saldhigyada kaasoo adeegsanayaashii siteena ay ka yaaceen markay aragtay qodobka afraad ee xeerka lambarkiisu yahay 22 soona baxay 2021 ee la dagaalanka mukhadaraadka sidaa darteed gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer wuxuu qaraariyay in la burburiyo lana baabi'iyo khamriga ka kooban 746 litir oo khamri ku jiro waxayna ka soo reebeen 4 dhalo oo khamri ah oo agsibid ah qaraarkani wuxuu soo baxay maanta taariikhdu tahay 22 waa shalay maanta 22 joogna bishii 8 2021 ilaahay baa mahad leh xiriirlaaliyaha maxkamadda gobolka Togdheer Jaamac Ducaale Saciid ayaa ku bogaadiyay dhankiisa ciidamada amniga dadaalka xoogan ay ugu jiraan la dagaalanka mukhadaraadka ma soo gelin booliisku inay ku qabtaan adeegsanayaashii nimankan khamriga ka shaqeeya aad bay u dadaalaan si aan loo qabanin sanduuqad ku xaree guri ku xaree maxaan ku dhahdaa dhulka geli maxawayaan meeshay ku qarin karaan bay ku qaranayaan booliiskuna deesu u dabargooyay wuxuu kaga daba galaa meeshii lagu qabtaba marka khamrigan meelaha kala gedsan baa laga soo qabtay waxa mudan waxa aan gaar u tilmaamay ka laga soo saaray godka boosha loo qoday lagu masaxay habeenba in laga soo saaro oo ay dhacdooyinka ay ku shaqeystaa weeyaan khamriga maxkamadda qaraarisay in la burburiyo sida ku xusan qaraarkan aan horayo waxa jira qaar kale wali aanu dadkoodii ku haynaan maxkamad keeni doono iyaga ayaa jira oo dadkii aanu ku qabanay booliis ku qabteen khamriga lagu qabtay baa jira iyaga maxkamad baanu keeni doonaa haddii alla ka dhigo ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaale sare Maxamed Faarax Nuur waxaana uu tilmaamay in ka booliis ahaan ay diyaar u yihiin in ay dabar jaraan maandooriyaha khamrigan oo ay sheegeen 746 ay soo qabteen gobolka Togdheer ciidanka booliska gaar ahaan saldhigga dhexe laba isku jiraan waxa weeye 276 waxa laga soo saaray god lagu duugay meel deyrkaas oo kale ayaa halka inta la qoday lagu aasay halkaas ka baamshireenoo kolba intay doonayeen kala soo baxay numberka kale 470 waxaanu ka helay guri qabiyo ah oo la dhex dhigay gurigaas aanu ka helay waxa aad ugu mudan saldhigga dhexe ciidanka iyo taliyihiisa oo ku guuleystay khamriga ay hor yaala ciidamada amniga ee gobolka Togdheer ayaa iyagu kuwa hadiyo jeer heega buuxa ugu jira la dagaalanka mukhadaraadka noocyadiisa kala duwan waxaana ciidamadu ay ka soo qabteen khamrigaasi lagu horburburiyay maxkamadda gobolka Togdheer goob lagu aasay Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.